kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka All Banaadir waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbin doonaa oo aad daawan doontaan warbixin aan si gaar ah kaga hadlayno isbahaysi ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug waxyaabaha xilligan keenay in qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ay ku dhawaaqaan isbahaysigan maxay tahay ujeedada ay ka leeyihiin isbahaysigan haatan laga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug muxuu soo kordhin karaa isbahaysigan ay ku dhawaaqeen musharaxiinta madaxweynaha Galmudug qaarkood dhamaanba warbixintan ayaad kaga bogan doontaan oo aan idinku soo gudbin doonaa saddex ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ayaa isbahaysi ku dhawaaqay isbahaysigaas oo ay ku midaysan yihiin saddex musharax oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ayaa waxay isbahaysi kaga dhawaaqeen magaalada Dhuusamareeb kadib kulan ay halkaasi ku yeesheen isbahaysigan ayaa waxa ku midoobay musharaxiinta kale ah Cabdiraxmaan Odawa oo ka tirsan xisbiga UPD Kamaal Daahir Guujaale oo ka tirsan xisbiga Wadajir iyo Cabdullaahi Faarax Weheliye oo horey u ahaa wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Faarax Weheliye kana tirsan xisbiyada mucaaradka ha yeeshee waxaa la rumaysan yahay in uu haysto taageerada ahlu sunna oo 20 xildhibaan ku leh baarlamaanka Galmudug rajaduna ay tahay in ay isaga dooran doonaan xildhibaanada ay soo xuleen hoggaanka ahlu sunna kuwaas oo laga mid dhigay xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug isbahaysiga saddexda musharax ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in ay u midoobaan musharaxa dawladdu ay wadato kaas oo lagu tilmaamay in uu yahay qoorqoor ayna u xaqiijiyaan in midkood uu guuleysto si uu u noqdo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ee dhawaan doorashadiisu ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya ayaa waxay dhaqaale xoogan iyo awood ciidanba isugu geysay sidii ay madaxweyne uga dhigi lahayd qoorqoor saddexda musharax ayaa isbahaysiga samaystay kadib markii ay arkeen ficilada dawladda ay wado sida ay sheegeen iyo hawsha ka socoto magaalada Dhuusamareeb iyo in dawladda aysan dhexdhexaad ka ahayn hanaanka doorasho ee deegaanada Galmudug waqtigan ka socdo isbahaysigooda ayaa halis ku ah musharax qoorqoor waxaan la rumaysan yahay in haddii ay isku geeyaan awoodda ay haystaan taageero ku filanna midkood uu noqdo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug kana adkaan karaan musharaxa madaxweyne oo ay wadato dawladda Soomaaliya rajada musharaxiintan ayaa waxa ay tahay in saddexda midkood uu noqdo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug maadaama waqtigan uu socdo hardanka u dhaxeeya mucaaradka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyaga oo ku loolamaya madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waqtigan cid noqonayso dawladda Soomaaliyana ay waqtigan awoodaha ugu badan ku bixisay deegaanada maamulka Galmudug si musharax ay iyadu wadato oo ugu soo baxo doorashada deegaanada Galmudug waxaase xilligan soo baxaya in musharaxiinta qaar ay samaysanayaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin si mid walba oo midka kale ugu caawiyo xildhibaanada isaga codka siin lahaa waxayna rajadoodu tahay in mid ka mid ah uu soo bixin karo haddii awoodda la isugu geeyo saddexdan musharax waa rajada ay qabaan musharaxiinta ku midoobay isbahaysigan cusub waxaa sidoo kale laga yaabaa in ay soo baxaan musharaxiin kale oo ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyaga oo samaysanaya isbahaysi ay ku midaysan yihiin sida musharaxiintan oo kale iyaga oo ka hortagaya waxyaabaha caqabada ku noqon karo sida musharaxa ay wadato dawladda dhexe ee Soomaaliya haddii isbahaysi uu ka bilowday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug kaas oo ay samaysanayaan musharaxiinta madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa dad badan waxay sheegeen in kuwa kalena halkaas ay ka aasmi doonaan waa doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo waqtigan yeelatay waji cusub musharaxiintan ayaana sababta keentay xilligan waxa ay tahay inay ka cabsi qabaan awoodda dawladda ay halkaas iskugu geysay iyo in musharaxa ay wadato dawladda dhexe kaas oo lagu tilmaamay in uu yahay qoorqoor in uu ku soo baxo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyagoo intaasi oo dhan ka cabsi qaba ayay waxay isku biiriyeen awooddooda si ay kaga guuleystaan musharax qoorqoor ayna u helaan fursad ah in midkood uu noqdo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waqtigan waa waqti kale iyo waji cusub oo yeelanayso doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyadoo dawladda dhexe ay waqti kama dambaysa ku sheegtay in ay tahay bishan Janaayo iyadoo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku sheegtay bisha Janaayo inay ku soo idlaan doonto doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waa sida dawladda Soomaaliya ay filayso in ay wax u dhacaan wax walba ayaana isbedelin kara oo ku aadan doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyadoo arrintan isbahaysiga cusub ah in ay samaystaan ay tahay mid ku cusub hanaanka doorashada dawlad goboleedka Galmudug wax walba
ayaana waxaa keeni kara caqabadda markaas taagan. kadib isbahaysiga ay ku midaysan yihiin saddexdan musharax oo ay uga dhawaaqeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa wasiir Weheliye waxa uu sheegay in handadaad lagu hayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Weheliye Faarax oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Galmudug ayaa eedeyn u jeediyey xukuumadda Soomaaliya. wasiir Weheliye ayaa waxa uu sheegay in xubno ka mid ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ay handadaad ku hayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Galmudug ee dhowaan la dhisay. waxa uuna sheegay in lagu amray in aysan la kulmi karin musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Galmudug, isla markaana liiska laga saari doono shakhsigii salaama musharaxiinta aan ka ahayn midka dowladdu wadato. xukuumadda Soomaaliya ee uu ka tirsan yahay ayuu sheegay in ay dhibaato badan ku hayso deegaanada Galmudug, isla markaana haddii aan wax laga qaban dhibaatooyin badan ay ka dhalan doonaan. wasiir Weheliye ayaa ka mid ah xubnaha sida weyn uga qayb qaatay dib u heshiisiinta ahlu sunna iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waqtigii la isku mari la'aa dhismaha dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybta la siin lahaa hoggaanka ahlu sunna. inkastoo waqtigan uu yahay mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, inkastoo uu rajo xumo ka muujiyey waxyaabaha uu sheegay in dowladdu ay ka wada halkaas. tallaabada ay qaadeen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay noqonaysaa tallaabo xilligan ku cusub deegaanada maamulka Galmudug. inkastoo rajo badan dadka aysan ka qabin in uu soo baxo musharax aysan wadan dowladda dhexe ee Soomaaliya, balse ay rajeynayaan kaliya in uu soo baxo musharaxa ay wadato dowladda Soomaaliya isagoo haysto fursad ay ku garab taagan tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya, wax walbana ay ku bixinayso sidii uu ku soo bixi lahaa madaxweynena u noqon lahaa. kaliya ma ahan saddexda musharax ee dhistay isbahaysiga ay ku midaysan yihiin dadka rajo xumada muujiyey, waxaase jira musharaxiin kale oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo rajo xumo ka muujiyey in ay ku soo baxaan doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, waxayna kol hore dowladda Soomaaliya uga eedeeyeen in ay wadato musharax iyada u gaar ah kaas oo ay doonayso in uu noqdo musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. kadib doorashada markii ay dhacdana uu noqdo madaxweyne ay soo saaratay dowladda dhexe ee Soomaaliya kaas oo maamuli doono deegaanada maamulka Galmudug. arrintaas oo ay ka soo horjeesteen musharaxiintaas iyadoo ay taagan tahay rajo xumida musharaxiintaas ay muujinayaan iyo eedeymaha loo jeedinaya dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa haddana waxaa la wada sugayaa bishan Janaayo gudaheeda in ay dhacdo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. wax walba ayaana isbedeli doono marka la doorto madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. maalinba maalinta ka dambaysa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay noqotay mid waji cusub yeelanaysa. eedeymaha loo jeedinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee lagu eedeynayay in ay faragelin ku hayso doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sii kordhaysa. ololaha ay wadaan musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa saameyn waxay ku yeelan kartaa musharaxa ay wadato dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay jirto handadaad lagu hayo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo dhowaan lagu dhisay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. waxayna sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay xilligan tahay mid dadaal xoogan oo mid dhaqaale iyo mid ciidanba ku bixinaysa in uu guuleysto musharaxa madaxweyne oo ay iyadu wadato. waxaa laga warsugayaa tallaabada ay qaado dowladda dhexe ee Soomaaliya taas oo ku aadan musharaxa madaxweynaha Galmudug ee waqtigan iyo waxa isbedeli karo markii ay doorasho madaxweyne ka dhacdo deegaanada maamulka Galmudug, iyadoo laga yaabo in khilaaf cusub uu halkaasi ka dhasho marka uu soo baxo musharax aysan ku qanacsanayn dadka deegaanada Galmudug, iyadoo noqon karto caqabad kale oo ay la kulmayaan dadka deegaanada maamulka Galmudug. waxa la dhowrayaba waa halka ay ku soo dhamaato doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, waxayse dadku walaac ka muujinayaan in ay ka dhalato saameyn waxyeello ku reebta deegaanada maamulka Galmudug markii uu soo baxo musharax aysan raalli ka ahayn dowladda ama mucaaradka. intaas ayay ku dhantahay daawadayaal warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay saddex ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo xilligan samaystay isbahaysi ay ku midaysan yihiin kaas oo ay kaga hortagayaan musharaxa ay wadato dowladda dhexe ee Soomaaliya. ujeedkooduna uu yahay in ay codkooda ku biiriyaan mid ka mid ah musharaxiintaas si uu u noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug ee waqtigan. waad ku maasantihiin la socodka iyo daawashada warbixintan iyo guud ahaanba warbixinada ka baxa janalkeena All Banaadir.